السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا channel كينا هداد هورا لجوكتي لايكتا شيرتا نوغو تابو هداد نوغو عصبتاي سكرايبكا نو سارو يوتيوبكا سندكا هورا انا مقالة بدن دونيا سو دايو ايان جان سو يروايي oo ka xumahay laakiin insha Allah muuqaalka wixii ka dambeeyay xarajinay muuqaalo badan inaan soo daayo sanadka waxaan isla eegi doonaa buugta ugu badneed aan akhriyay ee wax badan ka faa'iiday buugga ugu horeeya sida u jeeda waa Faatatin Sara ayaa la dhahaa buugani adigana ku calaananaya oo shakhsi ahaan ku calaananaya xataa salaadaada si aad u wanaajiso ayuu ka hadlaya salaada waliba dadka salaada muqasiriinta ku ama taarku salaadka ayuu aad iyo aad ugu cambaaranayay kitaabkani tusaalooyin badan ay ku tusaya hadda cibaadada aad ugu gaabisid ama salaada xiriirkiina yani salaada muhiim number 1 noloshaada ka ahayn kitaabkani waxyaalo badan ay ku tusaya Faatatin Sara qofka akhriyo hal mar salaada ma dhaafi doontaba insha Allah billahi ta'ala kuwii salaadana xariga Ilaahay casawjal adoonka iyo Ilaahay casawjal kala dhaxeeyna waa salaada marka buugan aad buu muhiim u yahay buugayna labaadna ku xiga waa buuga la dhaho dariiqi ila quraani kariim buugani quraanka kariimka casawjal ayaa aragtidaad ka aaminsaneed ayaa ayado badan aad maalin kasta akhridid ayuu macno iyo tusaalooyin kala duwan ku taabanaya iyo Allah casawjal waqti kasta inuu kula hadlayo oo quraanka yani mar waliba ku leeyahay tadabbur samee mar waliba ku leeyahay يعني cibaadada markasta يعني shaqada iyo cibaadada iyo wax يعني noloshaada dhan ay ku xiran tahay quraanka kariimka ayaa ku taabanaya ayado badan buu soo qabsanay ayado badan ay tusaale soo qaadanaya ayadahaas oo waqti kasta Allah casawjal kula hadlayo oo adoonkiisa iyo cibaadadiisa ay ka hadlayo ninka qoray sheekha qoray waa nin sheekha oo culimada waaweyn ee Sacuudiga waxaanu ku jira jeelka Sacuudiga ayuu ku jira isagoo waliba jeelka ku jira ayuu wuxuu ka fikiray oo kaliya inuu umadiisa wax ku anfaco oo kitaabkan baa ayuu qoray waliba kitaabkan kaliya muu qoray isagoo jeelka ku jira kutub badan ayaa jira oo qoray sheekhaas jeelka ku jira maxaabiista Ilaahay waxa ugu baryayna jeelka Ilaahay ka soo saaro isagoo miinkiisa iyo maakiisa qaba buugan aad iyo aad buu nolosheeda 2026 yani buugta aad ula dhacay ay ka mid ahayd si qurux badan oo aad wanaagsan kalaamka Allah casawjal iyo aragtiyo kala duwan ayada xataa tadabburkeeda ayaad xataa qashuuc ahaan ayaad u akhriyaysaa iyo tusaalooyin badan ay ku tusaya حتى روحيا iyo nafsiyan iyo jirhaanba ayuu ayadaha ka hadlay ay ku soo qabanaya marka ما شاء الله تبارك الرحمن إلهي كسو صار الشركة ما شي خاص علماء واوين كميدا السعودية أداد جعشهين بوكان أما كتاب كان نيسو مخلصية أما نيسو يركابو نيسو إلى سوداك كومنتيجا كتاب كاني laba jeer iyo wax ka badan waad akhrisan kartaa xataa hal week gudahooda ayaad ku dhameyn kartaa kitaabkani yani isagaaba marka page-ka ugu horeeya aad akhridid page-ka dambe adiga waxa arkaysaa adiga dhowr iyo 30 maraya waana aad buu kooban yahay 120 maalmo mise 120 meelaha ugu weey page marka kitaabkan aad iyo aad baa ugu taliyahay dadka hore oo akhrisan ku akhristaan alxamdulillah rabbil caalamiin kitaabkeena nagu xiga ama buuga nagu xiga waxa weeye jalsaad maca nafs la ilaaha illa allah buugani waxaan akhriyay bilowgii sanadka ayaan akhriyay waliba sanadka markuu bilowga ahaa ayaan akhriyay bishii koowaad si xawli oo waliba oo akhriyay alxamdulillah rabbil caalamiin maadaama buugana aad ugu xiiseeyay oo qof muxuu ahaayeen ii sheegay laakiin buug wuxuu ka noqday copy qofkan ka soo iibsaday xigul waa ajraalkii markii dambe aan iibsaday aan akhriyay ayaan arkay waan copy inuu yahay ayaan arkay maktabadaha inta ugu badan ma garanayo waxa ay ka wadaan yani qofka inta marka hore uu ku dhaho bacda kama jari kartid marka dambe waxa arkaysa copy inuu yahay laakiin muhiimadu waa inuu wixii uu ku qoran yihiin kitaabka wala muummadooyin qaar meelaha qaar ay gelayaan ma ku copy yahay laakiin mawduucana ugu muhiimsan oo soo noqono buugani يعني aniga shakhsi ahaantayda wax badan buu ka bedelay nafsadayda ogaal badan ayaan u yeeshay يعني xog badan oo marka hore يعني deeysiray amba fudeeysiray ayaa buraal badan ayaa igu sameysmay buuga markaan akhriyay kadib buugan
cub ayuu leeyahay ama dhowr mawduuc oo kala duwan ayuu ka hadlayaa. marka aad iyo aad baan uga faa'iiday. xataa wuxuu ka hadlayaa yaraantaadii ayuu ka hadlayay, wax badan oo yaraantaadii ku saameeyay oo iminka aad la weynaatay laakiin aad garanay meel alaal meel ay ka timid dhaqamadan aad ku dhaqmaysid amba waxyaalahan yani fikradahan qaldan aad aaminsan tahay. marka buugan aan qof waliba waan kula talihabay naftaada يعني نفتاده كلية تايناد وهبيسي بوغان أو أخرديد والله وحوين بي يعني نوشا هذا أركتدا يعني نوشا يعني أركيسي دادك كلها رسن أي حتى يعني اسبدل أيات كأركي دونتا حتى مركو رادد دادك يعني مقال كسران كحكومي سرتما كدن بي أوغال قديد بياد ياليسا أو حد أوغالسا وحيالا بدن codobka ugu horeeya waa sidee ayaad u tiraahdaa kelmadda ah may. yani dad badan baa xijira kelmadda ah may inay ku adag tahay in waxa dhahan ma sameyn karno ma qaban karno yani maydu ku aad ugu adag tahay. raaligelinta dadka kale ay aad ugu badan tahay. codobka labaad wuxuu ahaa sidee ayaad xuduud ugu la dhigan kartaa dadka yani waxyaala badan xijira xuduud u baahan inaad ka dhigatid oo qofkaas inuu kula soo xadgudbin nafsadaadana wuxuu yeelin aad ku dhigi kartid walaa halkaa markaad maraysid jooji. yani marmarka qaar wax u baahanta waayo dadka qaar baa ilaa aad ku tiraadid joog yani is ogeen si yani maskaxdooda wacyigelin ahaana oo kaleeto u sameeya waxyaalo badan oo adiga ku dhibaateynay isagoo laakiin uu ka jeeda inuu ku dhibaateynin. marka buugan aad baan uga helay su-aalaha ku jira xataa buugani waxyaalaha aadka ugu sii jeclaaday waxa weeye su-aalo ayuu ku weydiinaya weliba dhaaratiya maaha su-aalo yani sarbeenan waa su-aalo aad iyo aad u dhaaratiya. xataa buuga waad ku qoqori kartaa waxbaad ku buuxi kartaa space fiican buu qofka u heli karaa. waxa kale uu ka hadlaya codob kale murugada iyo tiaabka yani murugada iyo markuu qofku aad u niyad jabo oo kaleeto waxaas ayuu ka hadlayay. waxa kale uu ka hadlayay waxyaalaha yani u baahan inaad nafsadaada yani aad ku qiimeysid amba yani qiimeynta la dhaho nafsadaada. waxyaalo badan buu ka hadlayay buugani. carabigiisuna aad buu fudud yahay qof waliba carabiga beesiga hoose yaqaana wuuna akhri karaa wuuna fahmi karaa. muhiim maaha carabiga waaweyn dadka qaar baa abwaagta carabta dhaha ma akhri karno maadaama carabiga waaweyn aan aqoonin. carabiga yaro iska fudud ayuu ku qornaa uma baahna kelmado badan oo cusub iminkaan dhihi karo way cusub yihiinba kumay jirin way ku jiraan way jiraan laakiin maaha kelmada aad yani u culus waad heli kartaa hadaad xataa googoleysid ama baart. والله إنه لمن العجب العجاب كيف يكون الرب شكور وأغلب الناس لا يشكرون. من علم أن الله عز وجل شكور وآمن بهذا الاسم وأن الله شاكر عليم لابد أن يتعود هذه الصفة فيكون شاكرا للمحسنين. ولهذا اللي مو من طبيعته يشكر من أحسن إليه. لما يسوي لك واحد عمل زين قل له شكرا اشكره قدم له معروفا رد له الجميل على الأقل ادعو له بالثناء. اللي ما يشكر الناس ترى ما يشكر رب الناس. هذه قاعدة من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس ولا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذه قاعدة. وقال بعضهم أصلا ربنا لا يقبل شكر من لا يشكر من أحسن إليه. فتعود الشكر يا عبد الله. أولا اشكر ربك ثم اشكر من أحسن إليك. رأى أحد الصالحين رجل محاضرة كدب بوغن قد عدب كان وحكا هذا ولبد عدتبو دنبيان وجعلها مس عدب كو دنبيي ها لبد عدتبو دنبيي وحكا هذا habdhaqan kaaga weliga Allah ka tagin dad habdhaqan leedahay waxyaalo habdhaqan ku yihiin oo wanaagsan ay yihiin caadooyin wanaagsan weliga Allah ka tagin. xagan kale naftaada sida u miisaanta ayaa uu ka hadlayay. xaga kale wuxuu ka hadlayay su'aalo ayuu lahaa. buuga inta u dambayso dhan waa su'aalo aad iyo aad buugan uga faa'iidi doontaa insha Allah. waxaan rajeynayaa xagan wuxuu sawirkaas lahaa aad uma muuqdo waxyaalahan ka cabanayay way kamid ahayd laakiin qorshe family-ga iyo bulshada muhiimad ay kala yihiin iyo sidoo kale muhiimsan yihiin iyo shaqada iyo waxaas uu ka hadlayay.
buugani buugga nagu xiga isaguna wuxuu noqon doonaa وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب إذا المرء لم يرضى بما ربه وهب فلن يغنه مال وإن زاد ما كسب فكن راضيا ترضي الإله بأمره فدرب الرضا نور ونبت الرضا ذهب وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب وكن راضيا لا تسخطن لشدة كما الشوك لا يعطي الرحيق ولا العنب في الإله وشكره فتلك معاني الخير خط بها الأدب إليك غصونا دانيات قطوفها ومنبع خيرات يفيض وقد نضب سلام وإحسان buugga nagu xiga waxaa la dhahaa idaarad fi islaam buuggan giftihaan baa laygu keenay qof aada iyo aada u wanaagsan ilaahay khiraas iyo xsanad badan baa ii keenay waad mahadsantahay baan halkan kasii dhahayaa buuggan wuxuu ka hadlayaa maamulinta idaaradda islaamka iyo maamulka islaamka dowladda hoose cashuuraadka qaabka loo qaado qaabka sikada loo bixiyo qaabka muxuu ahayey wasiirka daakhiliga wasiirka gudaha wasiirka dibadda wasiirka maaliyadda dhammaan waxa dowladoo dhan la dhaho oo dhan qaabka u dhaqanto waxaasoo dhan nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qaabka u dhaqmi jiray muxuu ahayey dowladiisii waqtigaas joogtay qaabka juqraafi ahaan loo cabiro waxaa kaloo ku jiray waxyaalo badan waa 300 iyo dheeraad baan marnay page waxaa kaloo ku jiray idaaradda maxay tahay maamulku muxuu yahay waxyaalo badan buu ka hadlaya buuggan wuxuu ku fiicnaa wuu aad buu ku faahfaahinayaa oo waqtigii asxaabta nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam khaliifadii raashidiintii waqtiyadii ka dambeeyay wixii dhacay sidii loo maamulay waxyaalo badan buu buuggan ka hadlayaa oo cod dheer oo muxuu ahayey yacni keliyata yacni hal video iyo 2 video lagu soo koobi karin mid walibana wuxuu ka hadlaya dowladda Indonesia markii dowladda islaam ee baxday sida loo sii maamulay adigu waa wallahi runba fiican qof waliba sharciyad dhigta ama qof waliba dhigta dhaqaalaha oo doonaya wax islaamka buug yacni xagga maamulka islaamka yacni ka kaba buuggan baan ku dhihabay xataa waxaan dhihabay anigu shakhsi ahaan buuggan yacni jaamacadaheena waaweyn yacni uuna laga dhigo waayo wallahi akoontiga dadka dhigtay aad bay uga faa'iideeyaan xataa waxyaalo badan aan akoontiga ku arki jirin ayaa ku dhex jira maasha allah tabaaraka raxmaan qof hadduu doonayo warqadaas ay ka soo dhacday aan ku ilaaway marka qofku wax kaba oo xagga yacni islaamka ka kaba oo dhaqaalaha ku saabsan oo boqortooyada suldaada marka qofku afgambi ku sameeyo dowlad maxaa yacni qaabkii dowladdu taagan tahay 3 tiir ay ku taagan tahay ma 4 tiir bay ku taagan tahay waxaasoo dhan goormuu wasiirka maaliyadda lacagto dhan isagu maamuli karaa oo markuu wasiirka kharajiga yacni mar waliba waxaa jirta wasiirka maaliyaddu maamuli karo laakiin mar waxaa jirta laga qaadi karo suldadaas yacni waxyaalo badan goorma qofka la dhihi karaa waa qof wadanka Soomaaliya ku hayo kaleeto xagga qoyska waliba ka hadlay aad buu ka hadlay xagga qoyska cilaaqada bulshada iyo dowladda xiriirka yeelan karaan wallahi buuggan anigu waxaan dhihabay qof waliba yacni shakhsiyan qof waliba yacni walow hal beetna hada ka akhriyo way buuggani yacni waa maasha Allah ninka qoray aad buu waqti badan ayuu geliyay xataa wuxuu ka hadlayaa degmada adeegyada la bixinayo dowladda hoose waxaas weeye qaabkay dowladdu loo soo cabashada gudbi karto qaabka dabagalka loo sameyn karo waxyaalo badan buu ka hadlay anigu xataa yacni baawi badan aan hore u lahayn ayuu yacni igu sameeyey iskuulada tacliimka waxbarashada dhinac waliba ahaatoba uu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa ay kaleeto qoyska markay la kala baxo ama hooyada iyo aabbuhu kala tagaan yacni waxyaalo badan ayuu ka hadlayaa kitaabka Casawajal
حتى آيات القرآن يا كتير وان تعالى هاي بوك ما ولا حسوسته ولو هاف دورج وقتي وكل دوان أنا آخري ما دام ببنا أفر بقول بيج أي وحير لا يهي مركا وين آخري والله لكن الحمد لله لكن سجع بس كلها ما عنك صبي الساخر واي حقت كتير جرتا يا ما أنت كوسي دي بس حسابات كوحيين قف كمل معمولة يا محوية هاي قرمي دردو لها اللي كرتا قرمي لها اللي كرين فكرك حتى أفكارتي يعني فكر هان تطورك يعني سلوه سميكرو بوك المبوك عجيبة أبوها والله إلى آخر قصية قفكي سيي يا جزاء ألف خير إلى آخر قصية باندي كرا معمولك الدولة حتى فكر هان ويقاد بيقدوي يعني ما شاء الله qofkii qorayna ilaa kharaasi haduu nool yahay haduu dhintana ilaa naxariisto ma garanayo wallahi buugani si kasta uu ka shakeeyo ama si kasta qofka ugu baraajiyo yani xaqiisi ma siinin baan dhihi karaa waayo yani macluumaadka ama xogta ku dhex jirta aad u badan tahay marka qofka isagoo akhriyo ma uu ka dhargay karaa oo yani baahidaas aad loogu baahi qabo bulshada inuu qabto ay ka dhargi doonta wali waxaan jeclahay buugan isagoo Soomaaliga la helo oo qof Soomaaliga uu jijimi karo inuu jijimo wali luqadda ku qoray aad uma adkeen marka ma sha Allah tabaarak raxmaan buugagtan oo ka waxa loo baahanyahay in dadka aqoonyahankeenu wax ka qoraan oo ay Soomaalihan ku qoraan dad badan baa jira u baahan Soomaaligiisi ya munzila liqur'an ya khaliq al-insan شكرا يا ربي شكرا هديت بوغا نوغو خيغا waxa weeye رقائق القرآن كتاب كان waxa qoray ama buuga waxa qoray isla ninkii hore qoray buuga طريق الى القرآن الكريم إبراهيم سرخان ayaa qoray ninka xabsiga ku jira jeerarka Sacuudiga buugan waa wuxuu ka hadlayaa tafsiirka quraanka kariimka yani tafsiir ayuu wandhihi karnaa wallahi buugan aad buu fiicnaa ma sha Allah wax badan qofka yani waad ka faa'iideysaa walow aan jeclahay buugan inuu yahay silsilad inuu yahay baan jeclahay waayo buugan qofka kama dhargi karo waxyaalo badan oo waxa jira qabiya buugan yani ama buugan qayb labaad buu baahan yahay baan dhihi karaa marka buugan aad iyo aad buu wanaagsanaa asaguna wala waqtiga aad u kala fog oo kala akhriyay waayo anigu intii u horeysay mar hal mar baan akhriyay intii dambe mar ba page waan ka saarayay laakiin buugan inta badan wuxuu ka hadlayay dikriga Ilaahay xuska Ilaahay dhimashada waxyaalo badan buu hoos daagayay والله ما شاء الله تبارك الرحمن إلهي كسو صار jeerarka ku jiro kolba cadawga haysta maxabus kolba maxaa waa laga gacan sareeyo mar waliba إلهي عز وجل كسو saaro yaqiintu ka hadlay aad wali wuxuu ku taabanayay yaqiinta aad iyo aad ugu taabtay tafsiir ahaan oo buuga nagu xiga waxa weeye buug English ahaan buu ku qoran yahay oo jararkiisa laakiin Carabi baa loo turjumay xog guud kama hayo buugan waayo anigu waa riwaayado kale buugan markaan maxaa akhriyay gabadh baa qortay markaa riwaayad baan dhihi karaa inuu yahay anigu riwaayadaha uma baxdo waxyaalahan ogaaday 2015 inaan aad uga helin waxa weeye riwaayadaha waayo riwaayadu waxay ka salaysan tahay خيال بكسمة وحياة اللي ألفي أو خيال أو بصل يهرد بلهن مركانو كمان هلين بتشوجي جمو هن بوجاني لكن توقع رسم بان يرى آخرية سيرو صدفة أنا ونو يبسد بوجان ما أنا جهركيس تشوجا أيان يبسدي ولو بواكلوا أن مركادا دب يعني بواكله الله خير لما ده يعني محاوس بيه لكن يعني بواك كلو ماشي يعني ما كتب بذهبتين مركا يمكن وقت كاسو كاتا وان أخري انتو هراء لكن تدنبه ولو انتو الدنبه ساودن
ما نخرين بوغا إدارة في إسلام بوغاس أي وقت بدن ما شاء الله تبارك الرحمن أنسي أتشوي بدن سيي الحمد لله بوقتك لو إسكاي ركبناين أو وقت بدن ما هل يعني وقتي جود وان كوي أو سن أخرجي لكن بوغان ألو كمان هي لكن كنت سنة وحنقص ضرب برامج كينن ما دام كنت سنة بوقتي أنا أخرجي لو كل شيء تنكا بوقت ما كان ما نخرين وايو وقتي فاملي أصحابته يوحس قاعدة بين وقاعدة ما عنده ود نقف كل معها مهم إنه واحد بدنا أخردت بواق بدنا أخردت لكن مهم حوالي هل بوق أما لو بوق أما صدح بوق أو صفة عنا دفعتي أو كاد على عضي أو حون كقاعدتي كم هي سنتي لا تبوق هذا أخردي مركا إن شاء الله مقالة ضمبي أيان نقول محاها يعني وعدان دوني سانوية إن الصوك كابو وحيالي كهالليان إن شاء الله بإذن الله تعالى هذا مقالة كلا دونيسان إنان يسو دوبو فولوج وحيالة كلا دونيسان كهالله واد كومنتيغاد سو iga soo sheegi doontaan muuqaalka wixii aqal muuqaalka da wax tabeysaan oo kato ama wax ka faa'iideen oo kato commentiga iyaguna waad igu soo sheegi doontaan شيرت لايكت والله وح يعني adiga haantaada wax weyn kula maaha laakiin aniga haantayda wax weyn bay la tahay because qof dhan like ku saaray waa masha Allah tabaaraka raxmaan qof ku sii share garin waa ka sii wanaagsan yahayba marka like-ta share-ta commentiga subscribe-ka muuqaalo badan baa insha Allah soo wada markaan dhiirigelin ahaan bay noqonaysaa oo muuqaalada inaan sii badiyo insha Allah sanadkan waxaan rajeynayaa sanad bashiyo barwaaqo dhammaanteen ba Ilaahay nooga dhigo sanad aan dhammaanteen farxad iyo jawi qurux badan wada qaadano insha Allah ayaan rajeynayaa sanadkii hore dadku dhammaantood ba ma dhihi karaan qof buu wanaagsanaa qof buu xumaa qof u dhexaad waxa oo geeri iyo murugo iyo waxyaalo badan bas waxaasoo dhan lacallahu khayr baa la dhahaa oo qalbigaaga Ilaahay casawjay waxa yani musiibada kuma rideen ama geerida waqtiga kuma timaadeen haddana Ilaahay casawjay og yahay in khayr ku tahay awood leedahay inaad qaadid geeridaas iyo tamarteedaba marka insha Allah muuqaalada dambe ayaan ku maqli doonaa khayr baan rajeynayaa